Rafiina Tandon mid kamid ah atrishadii ugu caansanaa Bollywoodka sagaashameeyadii atrishad heesaa inta ugu badan ay ka soo muuqata aad loo xiiseyn jiray daawashadooda iyo dhageysigooda. Haddaba waxaan la wadaagi doonaa xog iyo xaqiiqooyin u gaar ah gabadhan, balse intaan u gudagelin muuqaalkayga waxaan ka codsanaa janaalkeena ku soo biirto muuqaalka dadka sheelaaga noo saar si share gareey oo la wadaaga asxaabtaada soona dhawaada saaxiibayaal. Rafiina Tandon waxay dhalatay 26 Oktoobar sanadii 1972 Mumbai oo Hindiya ka tirsan ayna ku dhalatay markii la eegana gabadhan waxay fanka Hindiya ku soo biirtay sanadii 1991 filimkeedii ugu horeeyay partnerka Paul ayaa lagu magacaabaa Salman Khan ay qayb ka lahayd. markaan haddaan eegno atijadani aflaamta ka soo muuqata kuwada loogu jecel yahay daawashadoodana waxaa kamid ah filimka lagu magacaabo Mohra oo sanadii 1994 soo baxay Batme John Damian ee Covid iyo sidoo kale Amitabh Bachchan ee la waday Dilwale Ajay iyo Sunil Shetty ee la waday sidoo kale filimka caanka Zidi oo sanadii 1997 soo baxay oo sinidoo qaybta kale ahayd. atijadan marka la eegana heesaha ay ka soo muuqan jirtay sagaashameeyadii waa heesaha ugu caansan aadkana loo xiiseyn jiray daawashadooda dhageysigooda. markaan waxaan eegi doonaa gabadhan iyo xaqiiqooyinka laga diiwaangeliyay ilaa dhowr xaqiiqo ayaan ka eegi doonaa saaxiibayaal. xaqiiqada ugu horeysa Rafiina Tandon waxay kamid tahay atrishadaha farakutiriska ay ku guuleystay abaalmarinta National Award oo ah mid kamid ah abaalmarinada ugu qaalisan ee jilayaasha Hindiya la siiyo. xaqiiqooyinka waxaa qayb ka ah Rafiina Tandon sagaashameeyadii waxay kamid ahayd atrishadaha inta ugu badan jaraa'idada lagu soo qaato warbixinadooda maadaama xiriir jecel la wadaagtay ama xiriir jecel ay la lahayn jirtay ama ila soo wadaagtay jilaaga caanka ah Akshay Kumar kaasoo markii dambe bartamiin sagaashameeyadii ay kala hareen. xaqiiqooyinka waxaa qayb ka ah gabadhan waxaa la leeyahay Bollywoodka oo kaliya aflaamtiisa ma aysan sameyn dhankaasi Koonfur Hindiya oo aad dhanka Teluguga iyo Kannadana dhowr aflaam ay ka soo sameysay. xaqiiqada ugu dambeysay atriishadan kala wadaagi doona xawiyaan waxa leeyahay sanadii 2004 waxay is guursadeen nin soo saaraha kaas oo lagu magacaabo Anil Tedani. waxay isku dhaleen dhowr caruur ah. caruurta ay dhaleen waxaa kamid ah gabar lagu magacaabo Rasha Tedani taas oo sanadani 2025 ku soo biirtay fanka Hindiya. filimkeedu ugu horeeyay waa filim lagu magacaabo Azad kaas oo hogaamiye ka ah Ajay wiil uu adeer u yahay. haddaba intaas ayaan kusoo gabagabeeyay xogtii xaqiiqooyinka koobnaad kala wadaaga atriishada caanka ah Rafiina Tandon. fadlan hadda ka heshay muuqaalka like noo saar si share gareey walada asxaabtaada aan ku maasantahay daawashada muuqaalkeena.